Xidiguhu waa inay ku jireen meel gaar ah oo ka sarreysa magaalada Australia ee Brno markay ahayd Abriil 1889 markii Adolf Hitler dhashay. Midkoodna aabihiis Alois Gruber Hitler oo Adolf necbahay, ama hooyadiis Clara Boles oo isagu liddi ku ah, u jeclaaday, ma saadaalin karin mustaqbalka wiilkooda. Ilmo taabasho leh oo adag oo Adolf ku jiray dadiisa si fiican ugumuu samayn dugsiga. Riyadiisa waxay ahayd inuu noqdo rinjiile, taasoo aan rumoobayn sababtoo ah waxaa diiday Akadeemiyada Farshaxanka Fine ee Vienna. Wakhtigaas adag Hitler wuxuu ku kasbaday noloshiisii is-hoosaysiinta ah isagoo iibinaya sawiradiisa. Waxa ay ahayd Vienna in Hitler uu helay waxbarashadiisii ugu horreysay ee siyaasadda isagoo bartay farsamooyinka demagogi ee Karl Lueger oo soo qaaday fikradda waswaaska ah ee nacaybka iyo welwelka nadiifinta dhiigga oo isaga la hadhay ilaa dhammaadka xirfadiisa, iyo waxay murugo iyo masiibo badan ku keentay nolosha Yuhuudda Yurub. 1913kii Hitler waxa uu yimi Munich, halkaas oo uu si mutadawacnimo ah ugu adeegay ciidanka Jarmalku, waxaana la aqbalay 6kii Bavarian Reserve Infantry Regiment. Geesinimadiisa intii uu ku guda jiray adeegiisa Hitler waxaa la guddoonsiiyey birta heerka 2 iyo heerka 1. Sanadkii 1919kii Hitler waxa uu ku biiray xisbiga shaqaalaha Jarmalka, halkaas oo uu ku horumariyey xirfadihiisa odhaaheed ee gaarka ah. Waxyar kadib magaca xisbiga waxaa loo beddelay xisbiga shaqaalaha Jarmalka ee hantiwadaaga qaranka naasiga oo kooban. Sanadkii 1922kii Adolf Hitler waxa uu noqday hogaamiyihii xisbigii Naziga. Jarmal badan ayaa rajaynayay in Hitler uu u soo dejiyo nidaam ummad qaba niyad jab dhaqaale, shaqo la'aan baahsan, khalkhal bulsho, iyo xasilooni darro siyaasadeed. Astaanta Hitler ee faashistadu waxay isku darsatay dhowr walxood: qarannimo xad dhaaf ah, militariga, cunsuriyadda, iyo nacaybka. Adolf Hitler waxa uu noqday hogaamiyaha Jarmalka 1933, waxaana uu si degdeg ah u beddelay dimuqraadiyadii jilicsanayd ee qaranka oo ahayd kalitalis hal xisbi ah. Bilaysku waxa ay ururiyeen kumanaan ka mid ah siyaasiyiinta ka soo horjeeda, iyaga oo aan maxkamad la soo taagin ku xidhxidhay xeryaha dadka lagu hayo. Nidaamkii naasigu waxa kale oo uu dhaqangeliyey siyaasado isirnimo oo ujeeddadoodu ahayd in ay nadiifiyaan oo ay xoojiyaan dadka Aryan ee Jarmalka. Olole aan kala joogsi lahayn ayaa bilaabay inuu ka saaro Jarmalka nus milyan Yuhuudda ah dhammaan dhinacyada nolosha Jarmalka. Maanta Jarmalka annagaa leh, berrina adduunka oo dhan. Adolf Hitler. Dhaqdhaqaaqii naasigu waxa uu ahaa dhaqdhaqaaq fikireed oo la aasaasay 1919kii, waxaana hogaaminayay Adolf Hitler. Iyada oo ku salaysan fikradaha ka sarreeya jinsiyadda Jarmalka, waxay kor u qaaday dhul ballaarinta, waxay ku eedaysay Yuhuudda xanuunada Jarmalka, waxayna ku baaqday in laga saaro bulshada Jarmalka. Waxa ay dhalisay xisbigii Naziga oo xukunka la wareegay 1933kii oo hirgeliyey fikradihiisa. Nidaamka xisbiga ee 25 ujeedooyinka oo la daabacay 1922 waxaa dejiyey Hitler iyo Anton Drexler, waxaana ku jiray qodobada militariga, qarannimada, bulshada, dhaqaalaha, iyo nacaybka. Noofambar 8, 1923, Hitler iyo xubno ka tirsan xisbigii Naziga waxay isku dayeen inay si xoog ah u afgembiyaan dowladdii Jarmalka. Tan waxaa loo yaqaanay Beerhal-Putsch. Hitler waxaa lagu xukumay 5 sano oo xadhig ah, laakiin wuxuu shaqeeyey 9 bilood oo keliya. Inta lagu guda jirayna wuxuu qoray Mein Kampf, sawir gacmeedkiisa mustaqbalka ee Jarmalka ee taliskii Nazi. Waxaa la asaasay Janaayo 5, 1919. Xisbiga Naziga wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa RL Workers siyaasad koox yar oo garabka midig ah oo bilaabay hawsheeda Noofambar 1918 ee hoggaanka Anton Drexler. Nacayb daran ayaa ku sifoobay kulamadiisa. Sanadkii 1919 ee Drexler, goobadani waxay noqotay xisbiga shaqaalaha Jarmalka. Bishii Noofambar 1923kii markii uu fashilmay hoggaankii Hitler, xisbiga ayaa si rasmi ah loo mamnuucay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa dib loo asaasay 1925kii, waxayna sii jirtay ilaa kadib jabkii Jarmalka ee dagaalkii labaad ee adduunka, markii ay ku dhawaaqeen sharci darro Sebtembar 1945 xulafada.
kadib Anschluss ee Austria bishii Maarso 131938 ku dhowaad 2 oo Yuhuud ah ayaa lagu daray Reich. aragtida isirnimada xagjirka ah ee Hitler waxaa lagu daray Darwinism bulsheed oo u arkay Yuhuudda inay tahay isha khatarta ah ee Jarmalka iyo bani'aadmiga, iyo inay tahay arrin udub dhexaad u ah horumarinta firfircoon ee isbeddelada fikradaha cadowga ah sida dimuqraadiyadda, liberalism iyo hantiwadaagga. xataa ilaha masiixiyiinta ee fikirka siyaasadeed ee qowmiyadeed ee bulshada reer galbeedka waxa uu Hitler u arkayay muujinta gelitaanka ruuxa Yuhuudda ee ilbaxnimada Yurubta galbeed. Janaayo 1939 Hitler wuxuu ku dhawaaqay Reichstag in dagaal cusub oo adduunka ah uu horseedi doono burburinta qowmiyadaha Yuhuudda ee Yurub. markii uu dagaalku ka bilaabmay Poland Sebtembar 1939, Jarmalku wuxuu bilaabay burburinta Yuhuudda halkaas, inkasta oo in muddo ah la samayn jiray marmarka qaarkood halkii habaysan. waxaa kale oo ay ahayd wakhtigan in si nidaamsan loo dilay dadka maskaxda ka buka ee gaaska sunta ah, amarka Hitler. dilka joogtada ah ee Yuhuudda waxa uu bilaabmay kadib duulaankii Jarmalku ku qaaday Midowgii Sofiyeeti 22kii Juune 1941. marka loo eego aragtida Hitler ee adduunka iyo istiraatiijiyadiisa siyaasadeed, hadafka dhul balaadhinta si ay u helaan meel ay ku noolaadaan bariga iyo burburinta dadka Yuhuudda ah sida cadowga fikradda dhexe ay isku xidhi jireen oo waxay ahaayeen xudunta halganka oo dhan. gowraca ugu horreeya ee Yuhuudda ee Midowgii Sofiyeeti waxaa la bilaabay Juune 1941. dilka ayaa markaas lagu daray Yuhuudda kale ee Yurub. dhowr jeer ayuu Hitler xasuusiyey dadweynaha wax sii sheegistiisii ku saabsanayd burburinta Yuhuudda, iyo 2 Abriil 1945 wuxuu ku faanay inuu ciribtiray Yuhuudda Jarmalka iyo bartamaha Yurub. markhaatigiisa siyaasadeed ee Abriil 1945 wuxuu ku dhammaaday baaq ah iska caabin naxariis la'aan ah oo ka dhan ah sunta caalamiga ah ee dhammaan qurumaha Yuhuudda caalamiga ah. maalintii xigtay waxa uu isku dilay godkiisii Berlin.